bismillaahi raxmaani raxiim kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu idinka diyaarinay wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha xusbul xaakimka kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xusbigaasi mudane muuse bixi cabdi iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo oo socdaal dhowr maalmood ah ku soo gaadhay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa kadib markii ay dhammaysteen howlihii shaqo ay u socdeen kulan ballaadhan la qaatay jaaliyadda somalilan ee ku dhaqan dalkani kenya gaar ahaana magaaladiisa nairobi xafladdaasi isugu jirtay soo dhoweynta iyo isxog waraysiga barnaamijkii aan idinka diyaarinayna waa kane daawasho habboon wafdigan ballaadhan ee uu hogaaminayo guddoomiyaha xusbul xaakimka kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne xusbiga kulmiye mudane muuse bixi cabdi oo ay ka mid ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad xusbiga kulmiye mudane maxamed kaahin axmed iyo wasiirka khayraadka biyaha xuseen cabdi boos ayaa waxaa kulankaasi ku wehelinayay wasiirkii hore wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga maxamed cabdulaahi cumar iyo safiirka somalilan u fadhiya dalkani kenya cabdilaahi cabdi cali madashan xafladan ay ku kulmeen wafdigaasi ballaadhan iyo jaaliyadda somalilan ee ku dhaqan dalkani kenya ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin hore oo xilal ka hayay jamhuuriyadda somalilan siyaasiyiin cuqaal waxgarad iyo dhallinyaro isugu jira rag iyo dumar oo ka tirsan qaybaha bulshada waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka soo qayb galay xafladdaasi wasiirkii hore wasaaradda maaliyadda xuseen cali ducaale cawil siyaasi cali baashe suldaan mustafe cismaan xirsi iyo aqoon-yahan maxamed rashiid dhammaanba dadweynihii tirada badnaa ee ka soo qayb galay xafladdaasi iyo wafdigii ballaadnaa ee hogaaminayay guddoomiyuhu ayaa madashaasi waxaa kala hadlay ugu horrayn guddoomiyaha jaaliyadda somalilan ee dalkani kenya siciid dubad cali siyaasi cali baashe iyo suldaan mustafe cismaan xirsi waxaanay ku bilaabeen sida tan jirta oo dadku ay aada u dhibsadeen saxaafadda beelaha ka hadla haddaanu beel heblaayo nahay qaabka ay xusbiyadu u wada hadlaan qaar yidhahdaan anagu dawladba ma nihin waxba ma saxaxayno waxyaabo fara badan oo aada u fool xun haddii eebaydankeeda leeyahay ayaa waxyaabo damage garaynaya niyadda dadka dalka leh oo fara badan baa jira u baahan in la saxo baysas baa jira la bixiyey heshiisyaa jira iyadoo ninba meel ula cararay baa jirta oo ninba si u macneeyey waxaa jirta haddii baydankeeda leeyahay sharciyaddii dalka oo waxa dawladnimada lagu yahay waa sharciga iyo qaanuunka oo cidduu qabanaya iyo ciddii aanu qabanayna anaa kala garanay baa jirta oo dadkii waa la xidhaa qaarka shicibkii waa la xidhaa madaxda marka ay khaldanto cid xidhada anagu garan mayno marka ninka weyne mas-uulkaa ee uu qaanuunka iyo sharciga jabiyo dee xeer qabanaya haddaanu jirin dawladnimadii ma shaqaynayso waxaanu doonaynaa wax badan in la saxo waxaanu doonaynaa dalka in la wada yeesho waxaanu doonaynaa ummadda somalilan inay isku xuquuq noqoto waxaanu doonaynaa xusbiyadu inay barnaamijyadooda keenaan oo ay dadka soo hordhigaan waxaanu idin leenahay markaa ummaddu dhibaato badan bay soo martay qoladiina kulmiyadinku waa mahadsantihiin waa soo halganteen dalka waa soo xorayseen laakiin dawladnimada sharciyaddii in ay isku sharci noqdaan ayaa dawladnimadu ku xidhan tahay intaa la dhaqangeliyaa baanu doonaynaa waana mahadsantihiin waana idin soo dhaweynaynaa waana idin salaamaynaa barakaatu mudanayaal iyo marwooyin caawa sharaf badan oo ballaadhan bay noo tahay qolyahayga somalilan ka yimid inaad na soo ixtiraamtaan ood noo timaadaan idinkoo waxaad doonaysaan aan garanayo waxaad doonaysaan waxaa weeye dalka warkiisii oo aan ahayn kii telefishinada laga daawanayey ee kii dhabta ahaa ee raggii berrito hoggaamin lahaa hadday ku guulaystaan ay caawa halkayna la fadhiyaan aada iyo aada iyo aada baan ugu farxay jaaliyaddan intan la eg oo weliba wakti gaaban loo sheegay in laysu imaanayo oo intaasi ay soo ajiibtay aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa mahad kadib somaliland waa nabad qabtaa somaliland waa fiican tahay somaliland
rag baa u taliyey oo soomaalida kale meeshay maanta joogto ka horreysiiyey run ahaantiina wax lagu farxo weeye aada loogu farxo waayo somaliland maanta waa dal wixii dal lahaan jiray ay u dhan yihiin dal wuxuu lahaan jiray way inoo dhan tahay ama madaxweyne ha noqoto ama xukuumad ha noqoto ama baarlaman ha noqoto ama golihii guurtida ha noqoto ama boolis ha noqoto ama military ha noqoto rag baa u taliyey rag baa u taliyeyoo meeshay maanta ay joogto gaadhsiiyey runtiina wax lagu farxo weeye idinkuna waxaad soomaalida kala dheer tihiin weeye oad ku faani kartaan run ahaantii dhibaatada soomaaliya waa dhibaatadeenna wixii aynu la qaban karana waa la qabanaynaa laakiin inagu somaliland baynu nahay gurigeennii waynu hagaajisanay iyadoo weliba aan laynoo hagar bixin oo caalamku la-aantii lama noolaan karo weliba waddamadan caalimu thaalidka ee adduunyada saddexaad la yidhaahdo ee dalalka saddexaad kenya joogtana caawa laga yaabaa dad badan oo ku dhashay inay halka fadhiyaan rag iyo gabdhaba haddana miisaaniyaddooda waa la kabaa kenya aada og tihiin waxay hayso iyo waxay khayraad hayso iyo intay madax banaanayd waa la kabaa innaga waxayna yar baynu ku talagalnaa oo aynu ku xisaabtanaa oo aynu dad ku dhaafnay dadka aynu dhaafnayna waxaynu ku dhaafnay dulqaad iyo warinaga daaya iyo saasay ku wacanteeda daaya iyo wixii khalad ee dhaco odayaal u baxaan ya oo niman ducaqabayaal ahoo guurti la yidhaahdo berigii hore dalka qeyb weyn ka soo qaatay ayaa jiray oo isu keenay dadka oo shirkii boorame shirarkii ka horreeyey kii shiikh kii berbera kii burco anugu intaba goobjoog baan ahaa intaba goobjoog baan ahaa rag baa ka teliyey odayaala waxaynuna ku soo badbaadnay warinaga daaya laakiin looma dhammadii koonfurta jirtay ee soomaaliya jirtay inagu maynaan lahayn ya marka taasaynu dheerrahay waxaan xusuustaa anugu koonfurtaan aada uga shaqeeyo dowladihii federaalka iyo t n g cartay iyo waxaasaan ku jiray markay degaan noqotona nin reer ceergaabaanay iyo reer laascaanood laakiin waxaan idiin sheegayaa 11 sannadood baan hawshaa soo wadayo meel allaaliyo meel aan ku qoro tacabkayga wallahi aanan garanayn ee ogaada talabaad ilaa iyo 2013 ayaan somaliland joogay laba oday oo xitaa isku xanaaqay kala qabashadoodu waa waxqabad aan tirsanayo ya oo aan ku faraxsanahay wixii kalena iska badaa marka waxaad ogaataan oo aan idiin sheegayaa caawa oo run ahaanta reer kenyana waan ahayoo xaajiyadeedu waxay ku dhalatay nakuru markaa waxaan idiin sheegayaa oo run ahaantii aan si laab furan idinku sheegayaa inagu haddii aynu nahay reer somaliland dadka waxbaynu dheernahay waxaynu gaadhnay waxa laalay iyo wixii dhibaato ahay ina dhex yaalay inaynu ku xalinay wada hadal bira kooban u banaanka ka oran doona iyo warkii iyo wixii waftiga u yimaadeen iyaga u dayn doona marka damaantii horta waa salmaantiin dadka ka soo qayb galay xafladda caawa waxaana la jooga halkan wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Bixi Cabdi oo ku wehelinayaan ku-xigeenkiisii Maxamed Kaahin Axmed iyo wasiirkii biyaha wasiir Xuseen Cabdi Boos sida la idin sheegay hawsha ugu muhiimsan halkan u yimaadeen wax weeyaan xaaladda waddanka ka taagan wada socota ma lumaleynay abaaraha xunba ka taagan waddankii ilaa heer ku gaarsan yana waxaan u maleynay inaad kulligiin la socotaan marka maanta iyo shalay iyo
sidii soo degeen ilaa maanta waa 3 maalmood badan la joogan hadda waxay ku jireen shirar shirarkana waxay ku saabsaneed sidii u gaarsin lahayd beesha caalamka iyo maxaan ku yiraahdaa jaaliyadda halkan joogana caawa xaaladda waddanka ka taagan iyo baahida taala xagga iyo gurmadka ay dadkii xagga joogan naga wada baahan yihiin anagii iyo dee wixii naga caawinaya beesha caalamka marka taa sidii shirarkii waxay kala kulmeen iyo maxaan ku yiraahdaa warkii waddanka de kulli iyaga naga xogaalsan marka iyaga u dayn doona inay idin waraman intaasi kadib ayaa hadallo kooban oo ku wajahan jaaliyadda Soomaaliland ee dalkani Kenya inay tahay mid isku duuban meel looga soo wada jeeda wafdi kasta oo ka yimaada dalka Soomaaliland si isku duuban oo midaysanna u soo dhaweeyay waxa halkaasi ka jeediyay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkani Kenya Cabdullaahi Cabdi Cali aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanta kulankan halkan ku kulanay aan isku niman ku soo dhaweynayno gudoomiyaha xisbiga kulmiye أنا مشرح مدحوينه مسبح عبد ولا ليال waxaan soo dhaweynayna isaga guddigiisa isaga delegationka uu hogaaminayo ayaan ku soo dhaweynayna magaalada Nairobi gudoomiye maanta dadkan adarkiisid waqti gaaban baan ku yimaadaan magaaladana waa khamiis badankood dadku waa shaqeeya meelo badan fogna way ka yimaadaan marka dad badan baa jam ku jira oo haleeli waayay oo hadda telefoon noo soo diray oo bal hadii aad dib u yara dhici kartaan 1 hour ama nus saacadna si laakiin soo socda gudoomiye waan la soconnaa wixii dalkeena ka jiray maanta abaaraha ka jira waa la socdaa maalin dhaweedna waxaa noo yimi wafdi culus oo uu hogaaminayo Sheekh Qaliil wasiirka diinta awqaafta dad badan baa yimi lacag fiicanna waa la ururiyay lacag fiican baan ka ururinay magaalada Nairobi dhaqsana waan soo dirayna lacagta abaaraha waa la socdaa waxaan doonay inaan fursad halkan ka qaato inta hadda halkan joogta wax soo diri karta account M-Pesa number baan ku leenahay guddida abaaraha Nairobi lacagtood ku soo diri kartaan M-Pesa gudoomiye saarida halka Nairobi qabyaalad male waa dad midaysan oo isku xiran oo wada shaqeeya qabyaalad iyo xiisada ka jirta Hargeysa hadda halkan kama jiro had waa midaysanahay waxaan nahay dad Somaliland qabiil kasta waxaan jecelnahay in wixii dalka ku haray xagga jooga inay nagu daydaan dadka halka Kenya jooga oo nagu daydaan oo siyaasaddan xumadan hadda ka jirta ee doorashada waa in si nidaam leh oo edeb leh oo qabyaaladii ku jirin oo midnimadeena dhaawacin ayaan inagu talinayn inaad naga gaarsiisaan farinta in annagoo mid election ka dhici doona doorashada ka dhici doonta Somaliland inay mid nabad ku dhacda oo xaq ah oo xalaal ah waan ku midaysanahay taas ilaahayna waxaan u baryaynaa inaan ka gudbi doono oo dalkeenu dadkeenu ayagoo mida kaga soo bixi doono doorashada annagoo si midaysan oo wada jir ah oo isku duuban inaan ka soo bixi doono sidaad la socotaan gudoomiyaha iyo delegationka uu hogaaminayo wafdigu hogaaminayo waxay u yimaadeen halkan inay qolooyinkan halka fadhiya Nairobi ee United Nationska iyo safaaradaha janidiga magaalada jooga ay shirar waaweyn la qaateen muhiimadda weyn waxay ka dhaadhicinayeen abaaraha shirkaana waan ka qayb galay ballan fiican ayay noo ballan qaadeen inay aad si degdeg ah inta anigu waxba gudoomiyaha iyo waftigiisa inii faahfaahin doona wixii laga wada hadlay iyo arrimuhu say u socdaan
waxaa sidoo kale halkaasi khudbad dheer ka soo jeediyey wasiirka hore wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga maxamed cabdulaahi cumar oo baryahan ugu dambeeyey ku sugnaa dalka Kenya ee magaalada Nairobi. horta caawa sharaf weyn bay aniga ii tahay gaar ahaan in aan ka soo qayb galo kulankan ballaaran ee jaaliyadda reer Somaliland ee Kenya ay qaban qaabisay waayo anigu dayma ka reer Kenya aan reer Nairobi waliba marka sharaf gaar ay tahay marka laga yimaado mas'uuliyadda kale iyo arrimaha kale iga saaran marka aad baan soo dhaweynayaa gudoomiyaha jaaliyadda iyo safiirka iyo ragga iyo hablaha kale xafladda soo qaban qaabiye wanaagsan inta markaan ka baxo kelmadda caawada loo yimid gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo wasiirka Somaliland nooga yimid iyo Cali Baasho odagii shirkan iyo hawlahanba qaban qaabadiisa qaybta weyn ku lahaa oo hadlay yaa la caawa waxaan si jecelahay in dhowr kelmadood oo gaaban anigu halkan aan ka soo jeediyo marka ugu horeysa gudoomiye jaaliyadda reer Somaliland Kenya taariikh gaar ah leedahay oo kaga duwan tahay jaaliyadaha kale ee Somaliland waa marka hore halgankii Somaliland ay xorriyadeedii Ingiriiska markay ka qaadanaysay jaaliyaddan iyo odayaashii iyo dadkii halkan ku noolaa kaalin mugle ka qaateen oo taariikhi oo loo yahay ay ka galeen halganka xoreyntii ay Somaliland dib ula soo noqonaysay xorriyadda kala qaadanaysay Ingiriiska markii dambe ay Somaliland dib xorriyadeeda haddana ula soo noqonaysay kadib markii unionkii iyo midowgii Soomaaliya uu fashilmayna waa looga kaalintii ay ka qaatay jaaliyaddan oo halkan madaxdii xisbigii SNM hogaaminaysay raggii ugu sareeyay yaa maanta halkan caawa nasiib leh oo fadhiyo jaaliyadda fadhiya taariikhdana way leedahay oo rag badan oo imika qaarkood aan nooleynba yaa caan ku ah Kenya iyo East Africa ba oo kaalin weyn halganka ka geystay ta kale ay aad ka qayb qaataan waxa weeye mar kasta oo xaalad ay ka jirto Somaliland ama ha noqoto xaalad abaareed ama gurmad kale dalka looga baahiyo ta imika taagana ku daro hadiya jeer jaaliyadda East Africa kaalin mugle oo muuqata ayay ka qaataan marka anigu saddexdaaba waxaan arkaa in ay tahay qayb ay leeyihiin aniga ka maxamed ahaan berigii aan ahaa wasiirka arrimaha dibadda jaaliyaddan iyo odayaasheeda iyo hablaheeduba si weyn ayay halkan gacan iga siiyeen gudashadii waajibkii halkan markaa iga saarnaa aan ka waday taana si gaar aan uga mahad celinaya intaa waxaan u gudbayaa imika xumadda Somaliland imika dee taagan waxa weeye xumadda doorashada iyo diyaar garowgeeda iyo hawlaha la xidhiidha hadiya jeer marka dawladuhu ay doorashooyin galayaan dee waxa badan tartanka waxa badan hadalka deel dhaafka mararka qaarkood aan ku haboonayn in saxaafadda iyo meelaha kale ee warbaahinta la isku mariyo halka waxaan jecelahay in aan ka soo jeediyo talo ah in asxaabta qaranku ay tartanku aanu ilowsiin wadajirka iyo mas'uuliyadda ka saaran qaranka guud ahaantiiba isku hayntiisa iyo midnimadiisa iyo walaaleyntiisa intaba marka waxaan jeclaan lahaa halkan inaan fariin guud aan asxaabta qaranka mid walba oo kaayiga kulmiyana uu ku jiro inaan ka gudbiyo intaa waxaa ii dheer beri dhaweyd aniga dacayado fara badan baa baryahan miidiyo aniga laga qoray miidiyaha qaar ka mid waan isleeyahay asxaabteedaan ku leeyahay xisbiyada mucaaridka iyo arrintaa ka dambeeya oo qaarkood waxay qorayeen inaan imika ilaa maanta inaan joogo magaalada Muqdisho inaan ka mid ahay madaxda Soomaaliya imika hoggaanka dalka iyo mas'uuliyiinta ugu sarreeya imika qaban doona arrimahaasi waa arrimadii aan waxba aan ka jirin waa arrimada caydaha aan sheegayo ka mid ah oo aan ka digay in arrinta aan siyaasadda la dhexgelin tartan baa xisbiyada qaranka naga dhaxaya tartanku wuxuu ku saabsan yahay waxqabadka dalka himiladiisa uu Somaliland hibinada ay leedahay inay dal xorriyadiisa u helo ictiraaf inay tahay taasaa naga dhaxaysa waxaa naga dhaxaysa midnimadiisa waxaa naga dhaxaysa inaanu difaaciisa iyo horumarkiisa aanu ku tartanno oo aanu isku dhalayno oo aanu sheegno si aanu kala wanaagsannahay marka taan anigu waxaan isleeyahay dee kulmiye record buu imika dhigay intii imika dee uu jiray 7 sano 5 sano la doortay iyo inta dheeraadka imika ku ah doorashadu dee habsaantay oo loo baahan yahay doorashada in laga wada midoobo sida waqtigooda imika aanay mar labaad u dhaafeen tartamadaas dee naga dhaxaya marka dee kulmiye recordkaas uu leeyahay imikana haddii dadka reer Somaliland ay mar labaad siiyaan mas'uuliyadda qaranka waxaan isleeyahay halka iyo meel ka fog oo ka wanaagsan ayuu xisbigu hoggaankiisa imika dee halkan fadhiya iyo ragga iyo dumarka kala muuqda ay gaarsiin karaan waxaan jeclahay hadalka inaan intaa kusoo gabagabeeyo waxaan ku dardaarmayaa jaaliyadda reer Somaliland ee halkan ku dhaqan in
ay midnimadii marka halkan laga hadlayay aniguna aan markhaatiga ka ahay inay halkaa ka wadaan si qarannimo ay dalkooda isku berbertaagaan duruuf kasta oo dalku marayo tartamada siyaasiga ay socdana ay u arkaan inay tahay duruuf siyaasadeed iyo tartamo siyaasadeed oo aan naxli kale dalka aan ku beerin had iyo jeer waayo waxaan garanayaa tartankii 2010 xisbiyadiina dhexmar anagu markii aan ku guulaysanay si wanaagsan oo xaraga leh oo milga leh ayaa xukuumaddii naga horreysay ee daahir riyaali ka ahayn madaxweyne daahir iyo odayga ka ah ay xukunkii iyo maamulkiiba noogu wareejiyeen una ogolaadeen codkii iyo foodkii dee laga helay ee ay dadka reer somaliland ku heleen iminkana waxaan rajeynayaa in asxaabta qaranku marka ay dadka reer somaliland codkooda bixiyaan in qolada laga guulaysta inay iyaguna sidaa iyo si lamid ah ay samayn doonaan wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaana intaasi kadib hadalka qaatay mas-uuliyiintii ka tirsanayd wafdigii uu hogaaminayay guddoomiye muuse biixi cabdi oo ay ka mid ahaayeen wasiirka khayraadka biyaha xuseen cabdi boos iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xusbiga kulmiye mudane maxamed kaahin axmed guud ahaan markii aan xaggaa idinka warramo kolley abaar ba'an baa ka jirtay oo dadka iyo dunyada waa saamaysay dadkii haddaba halis ku jiraan sida haddii ogsoontihiin ama media kala socotaan waxaa kolley inoo kulligeenba annaga iyo idinka dadkiina jaalidan kaga tegayba dadaal badan baa horta laydinka rabaa iyo contribution badan inaad samaysaan dadkii ka warhaysaan bal dadka si loo safe garayn lahaa coli aad bay u dhammaadeen dadka si loo safe garayn lahaa taas waa dardaaran reer Nairobi maadaama reer Nairobi aan hoos aan idinku sheegayo maadaama halkan ahaa waxaan jeclahay inaad contribution waa laydin sugayay anigu waxaan guddida abaaraha ka shaqaynaysa abaaraha dee dadka u dadaalaysa guddida abaarta ayaan odhan abaaraha abaartan ilaahay taa inagu soo gabagabeeyey ayaan ku jiraa dhowr wasiir oo la shaqeeya ayaan ka mid ahay aad baan u tagnaa dhulkii oo dee wixii meelaha walba iyo dhibka ka jira waanu marnaa waxaa la doonayaa in dadkii loo dadaalo taas aan kolley abaarta waxyaalaha ugu badan in haweenka ku dhacdo waa biyo la'aanta biyuhu waa important waad ogtihiin biyaha waxaynu gaarsiin karno kolley ceelal badan waanu wadnaa hadda oo aan hadda noo bilaabanaya hadda aan wasaaradahan xayeysiinaynay inaan dhul badan ceelal ka qodno dadaal badan baan ugu jirnaa bal sida biyaha cirka abaartu ay soo noqnoqonayso si biyaha cirka aynu u qabanno oo bal haddii ilaahay dee abaar kale ma garanayo in abaar wax kale haddii ay abaar dambe dhacdo si aynu uga faa'iidaysano biyaha waqti dheer waayo biyaheenu waxaa la yidhahdaa boqolkiiba 70 in ku dhow ilaa boqolkiiba dhowr iyo 70 in ku dhow ayaa badda mara oo badda ku qubta waxaynu u baahnaa in qolyo badan oo hadda aan wada hadalay waxaan jeclahay inaan isbedel ku samayno bal biyaha qubanaya ee khasaaroobaya in la qabto si aynu uga faa'iidaysano biyaha qolyo badan iyo sharaa'ig badan baa hadda aan hawl bilaabayay oo aan hawsha dhaaman badan sameynayay ceelashana waa la qodayaa waxaan jeclahay bal inaan isbedel halkaa ka samayno oo aan biyaha ka faa'iidaysano taas waa mid ta kale halkan waxaan u nimi kolley dee waftigii kale ila socotay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ay aad idinka warrami doonaa kolley iyagana maalin walba waxaanu anagu qaydada iyagu badnayd waxay ahayd war dadkii maxaa loo hayaa developmentka noo kaadiyo maxaad dadkii aanu gaadhsiinaa iminka oo ku seef garaynaa marka kolley waxaan u nimi waxay ahayd in dadaal in dadkii wax loo qabto oo wax la gaadhsiiyo idinkuna dee qof walba meesha kaga aadan weeyaane idinkana waxaan idin dardaarmayaa inaad contributionka maalin inta aad u goysaan qadada aad dadkii wax u geysaan taas waa iga dardaaran annaguna wixii aanu qaban karno dee wayna wada dadaal wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدوميها حسبك وزير ردي هرأي وزير رد الدبير هير سومالي لان شاليد شرفت له رير كينيا طبعا ده شاليد دي رير كينيا ودن عاوة waxa halkan ka matalaya jaaliyada maxaan ku dhahday reer Nairobi gudoomiyaha gudidooda haweenka odayaasha iyo dhalinyarada dhamaantiinba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad bay sharaf noogu tahay aniga aad iyo aad baan u xiisaynayaa kulanka
jaaliyadda reer nairobi ee caawa aan halkan kula kulannay sababtu waxa weeye sidii uu maxamed cabdilaahi u sheegay halkan nairobi waxaan u malaynayaa waxaa magaca soomaalida sheegtaa ama afka soomaaliga ku hadla waxa ugu soo horreeyey oo halkan yimi waxa weeye jaaliyad asalkeedu uu ka soo jeeday reer somaliland taariikhiyan sidaasay taariikh fara badan bay ku leedahay dadka dhallinyarada da-yarta iminka ee aan taariikhda aada u xiisaynin mooyaane kolley aniga da-dayda iyo wixii loo gaadho wax fara badan bay ka dhegeysan jireen maxaan ku dhahdaayey dadka halkan yimiye reer somaliland dad sharafla bay ahaayeen dad isku duuban bay ahaayeen dad halkan dadkii reer kenya ka dhex muuqday muwaadiniintii u dhashay dalkan kenya ay ahaayeen kolley sidii guddoomiyuhu u sheegay iyo safiirku dee soomaalida waxay ku mahmahdaa awr laba la siiyey dhalwanaag ku faan maaha ilaa laba halaad baaba awrka la siiyey inuu geel kaloo qurux badan dhalo faan kuma aha qoladiina yaryari miyaaf soomaaligii ilowdeen raggii hore iyo ragga ay dhaleen iyo kuway dhaleen ma ilaawin asalkaasay ka soo jeedaan jaaliyadda reer somaliland dhulkan faraha badanle berigii dhawata ku ashkatoonayseen wax fara badanoo maxaan ku dhahdaay ay dhaxleen waxa u keenay waa midnimada u keentay annaguna hadda waxaanu idinkula dardaarmaynaa in aad sidaa u midaysnaataan soomaalidii qabyaalad baa lagu salliday inankuna taasaynu ka mid nahay laakiin meel janno yaroo qola leedahay oo qabyaalade ay u samaysay lasoo waah abaartaasi imika way nahaysaa qolo roob inoo shubi kartaa ma jirto markaa waxaynu u baahanay inaa idinkuna midaysnaataan sideednana waxaa ogaataan haddaad imika dib u raacdaan imika halkan kenyada aad joogtaan nimanka hindida la yidhaahdo haddaad dib u raacdaan waxyaalaha ay dalkan ku qabsadeen ay ilaayo imika dee ganacsiga ugu weyn iyo dhaqaalaha ugu weyn ay u leeyihiin waxa weeye waa urursanaanta iyo maxaan ku dhahdaa midnimada arrinka aada iyo aada ugu dadaala annaguna waanu idinku bogaadinaynaa haddaa annaka lafteeda nagala hadlaysaan marisa soo yaro xaamxaamta oo xaggaa noogu kacday oo idinkuna mar nagu soo yaro canaanta arrinta kale waa arrintii wasiirku ka hadlay abaar adag baa maanta dalka ka jirta meelaha qaarkood dhimasho dad baa jirta xoolaha waxaa la qiyaasayaa in 80% in ka badan gobollo doora maxaan ku dhahdaa ee xooluhu baxeen qoladii way noo sheegeen suldaanka iyo safiirka iyo cali baashiye qoladii halkan joogtay in ay wasiirkii diinta iyo awqaafta oo guddida abaarahana ka mid inay idin yimaadaan halkan idinku yimaadeen inay hawl ku jirtaan waxaan jecel lahay in arrinkaa aa qayb weyn maanta ka qaadataan oo habluhu weliba ay qayb ka qaataan waa maalmihii dahabka la iibinayay intaan markaan ka nimaadno dee somaliland waxaa kala socotaan idaacadaha kala socotaan telefishinada kala socotaan social mediaha kala socotaan waan fiicannahay waayo iminka arrimahaanu halkan ka nimiyo aan idinka warrami doono waxaad ku garan kartaan abaarta sanadkii hore bilaabantay dabayaaqadiisii oo iminka ilaa dhowr bilood lagu jiro ilaa iyo iminka qoladan international communitygihii maantay noo confirm gareeyeen oo ay noo sheegeen east africa oo dhan oo aynu ka mid nahay wixii ay dhaqaalo ugu talagaleen waxaa ilaa iyo iminka somaliland barnaamijkeeda wadaa waxa weeye waa xukuumadda somaliland iyo dadka shicibka ahee reer somaliland ilaa ganacsatada yaryar ilaa ganacsatada waaweyn ilaa iyo ardada ilaa iyo shaqaalaha dowladda min askari ilaa iyo madaxweynaha waxaa laga jaray maxaan ku dhahdaa lacag baa laga jara inakoo quraha ilaa iyo iminka wadna waanaynuna ku dadaalaynaa iminka beri dhaxaase waa yar busaaradsanaydeen iminka laakiin ganacsato badan baa leediina lacagta soo bixiya maanta dadkeenii baa dhimanaya xoola laga hadli maayo in dadka la seefgareeyaa loo baahan yahay arrinkaasi waa arrinkaa arrinkii uu guddoomiyuhu uu sheegay marka had iyo jeer mid baa wuxuu yidhi beri aanu isniqino de raggaan wada shaqayn jirnay oo reer soomaaliya wuxuu yidhi markaa isku dhishaan dee dagaalka isku qaadaan waxaanu isnahanaa berita islaynaya horta dhinac
de idinkuba dalkana joogtaanoo axsaab buu leeyahayoo jaraa'id buu leeyahayoo waxaa had iyo jeer aragtaan marka la tartamayo waxyaalaha buuqa siyaasiga ahee kaca dhinac waxay ka tusaysaa in somaliland dadkeedu uu koray dimuqraadiyadeedu ay kortay in aada loo wada hadlayo oo dhinac way ka wanaagsan tahay dhinac marka qabyaalada loo tarjumo na way ka xun tahay mas-uuliyadda haddaanu reer hebel nahay cidda saxaafadda kasii daynaysaa mas-uuliyaddaa leho saxaafadeenu weli waa curdun laakiin iyagaa mas-uuliyaddaa leh axsaabtana waan idiin qiraynaa asluub iyo akhlaaqiyaad iyo aadaab siyaasadeed baa loo baahan yahay kursiga ha lagu tartamo haddana inaanay axsaabta waxyaalaha qaarkood ka dhadhamin annaku xisbi baanu naho waanu idinka ballan qaadayna waana nagu soo qabsanaysaan dhaqamo noocaasi hadday naga soo baxaan walaalaha iyaga kalena waanu sheekaysanaa waanu isu tagnaayo waxna waanu wada leenahay waxna waanu ku tartamaynaayo iyagana waanu ku dadaalaynaa inaanu arrinkaa gaadhsiino sharciga iyo khayraadka dalkana waa loo sinaanaya somaliland way ogtihiin waa dal curdina sidii cali baasha uu sheegay miisaaniyadda somaliland cidi nagama qabto askarigeenu marbuu $20 ku shaqaynay awal hadduu imika ka sheekeeyo halkii wasaaradda maaliyadda ka bilaabay waa la yaabaysnan kuwii ka horreeyey ee dowladayadii u horreysay ee cabdiraxmaan axmed cali raggii ka bilaabay waa macdaar yaroo isliya inta kasoo baxdaa somaliland kama soo bixi jirin somaliland halkaasay kasoo bilowday ciidankeeda mushahar cid kale ma siiso biliiskeeda ma siiso militarigeeda ma siiso wasiiradeeda lama siiyo dowladda soomaaliya ilaa iyo madaxweynaheeda waxaa mushaharka siiya qoladan European Unionkaa siiya askartooda iyagaa siiya askartooda qoryaha iyagaa u iibiya somaliland aad bay u dadaalaysaa waanaynu kusii daraynaa arrimaha siyaasadda buuqaa siyaasiga ah nin kastaaba wuxuu doona ha yeelee laba xeer baa yaallo oo nin walba qabanaya ninna loogu naxariisan maayo labadaa xeer waayo laba madaxweyne oo horaa xeer kaa dhigay mid waa axmed siilaayo 80 baa lagaga helo wuu ka dhaqajiyey mid waa madaxweyne daahir riyaale kaahino doorashadii waa laga helayo si qurux badanoo afrikaba daldal dhifa ka dhaca ayuu xilkii ku bareejiyey peaceful transition buu ku sameeyey cid waliba wuu yaabay xeerkaa daahir riyaale iyo xeerkaa siilaayo baa nin walba lagu xukumaya ina bixiyo qoladeeda kulmiya haddaanu biqbiqlayna kaasaana lagu xukumaya axsaabta kalena kaasaa lagu xukumaya waxaan caawa idinsii qadimaya idinsii sheegayaa annaka waa nalaga helayaayoo buuqaas nagu arki maysaan oo nagala kulmi maysaan qolyaha kalena de idinkaa u shicibaho idinkaa xukumaya intaa markaan kasoo gudbo halkan waxaanuu nimi kulan aanu la yeelanay qolyahan maxaanku dhahdaye ay nagu marti qaadeen qaarkood hay-adahan caalamiga ee halkan jooga iyo safaaradaha dalkan Kenya jooga ee qaarkood ay qaabilsan yihiin Somaliland iyo Soomaaliyaba cali baashiye ragga aadka uga soo shaqeeyay buu ahaa ambassadorka iyo isaga iyo suldaanka iyo way nagala qayb galeen oo wax yar oo gaar ah annaka gudoomiyaha iyo anigii wasiirka qoriga kama aan qayb galin maxamed cabdullaahi oo u dambeeyay baa isagana qaar nagala qayb galay qolyaha waxaanu aragnay safaaradaha halkan jooga EU ambassadorka halkan jooga safiirka Mareykanka ee xaggan qaabilsan safaaradda maxaanku dhahday Jarmalka Mareykanka maanta u dambeeyay waxay isugu soo kacaya yeedheen dhammaan qolyaha xiriiriya arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha Somaliland la shaqeeya oo lagu qabtay maxaanku dhahday safaaradda Denmark ay ka mid yihiin safaaradda Mareykanka USA-keeda safaaradda maxaanku dhahday Finland Australia qolyaha soo dhan baa isugu yimi laba qodob baanu ka wada hadlaynay labada qodob mid wuxuu ahaa dareenka ay ka qabaan doorashada oo aan islaanahay waa ka qanciseen oo doorashooyinkan dib u yara dhacdhacay xoogaa maxaanku dhahday aanay raalli ku noqonin
ayaga taa waanu ka wada hadalay arrinka kale aan ka wada hadallayna waxa weeye waa arrinka abaaraha imika gabagabadii xafladdaasi ayaa waxaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa halkaasi uga soo jeediyey jaaliyadda somalilan ee dalkani kenya gudoomiye muuse biixi cabdi isagoo jaaliyadda uga warramay xaaladda guud ee dalka uu maanta marayo siyaasadda guud ee xusbiga kulmiye ay ku waajahan tahay iyo waxyaabihii ay u yimaadeen dalkani kenya iyo wixii uga qabsoomay waxaanu ku bilaabay sida tan aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa daatiin jaaliyadda halkan caawa timid shirkana noo soo aloosteen iyo intii aanu joognay magaalada si aan noo soo dhaweyseen dad badan baa noo yimid qof waliba maxaan isla qabanaa odayaal leh dhalinyaro leh haween leh taa aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa sidii uu wasiirka hore sheegayna cid walba idin timaadaaba si wacan ba idinka mahad sheegataa waa gowanimo dheeraad beledii waxayna tahay halkan waxaanu halkan waa laga hadlay abaartiina waa laga hadlay shirarka halkana waa laga hadlay waxaan isleeyahay dadku inta halkan fadhidiya inta dhegeysan doontaaba malaha su-aal bay isweydiinayaan kulmiyow murashaxow maxaa soo wada inay su-aashaa dadka talmaamana oy jawaab u baahan tahay taa waan ka hadli doonaa wax yar waxaa kaloo iyana maalmahan dambe aada dadka dhawooda ugu badan magaalo la yidhahda berbera iyo bays iyo d b w malaha dadka laba maskaxoodba taasay aada iyo aad kulmiyo maxaad soo wadaa maxaad fishinaha cusba noo keenaysaa haddii su-aashaas si kooban looga soo jawaabno kulmiye laba hal baa noo beysa mid waxa weeye waayo aragnimadeedii dheerayd waxaanu nahay xisbiga qura somaliland ee 7 sano ka hor 8 sano ka hor markuu tartamayay ummadda soo dhigay barnaamij qoran oo uu la galay barnaamijkaasaan fulinayaa codkaygu sii horta xujadaasaan ku jiraa xisbiga kale kuma jiraa wixii aan dadka halka lagu yaalaa dadkaa qiimeyn doona siday cadaaladu tahay haddii aanu intii badad ka soo baxnay imtixaanka dadku ay naga qaadaan waxaan qabaa inaan ku guuleysanayno kalsoonida u qabanka imtixaanka iska qaadan dheer codkaygana waxaan leenahay haddaydaana e keenin kollay c maydaan keenin b baa keenteen marka kalsoonida baan doorashada ka qaba inaan taa wax ka helayno talabaad waxaanu soo wadnaa in markii barnaamijka aanu samaynay ee qoraal iyo fikir buu ahaa in loo rogay practical ama shaqadii la galay ay dhaliilo badan ka soo baxeen dhaliilaha intaan mucaaridku noo sheegin intaan dadku noo sheegin annagaa ka hor aragna dabeetana waa qorana wax halkaa dhiga yimi fikirkii berigii kaanu qaday kaasa kasoo noqday inaanu kuwaa saxno oo caqabadiina waa nimid si loo daweyn lahaa aanu barnaamijka hore ku darro iyo caalamku isbedelaya oo noloshu maalin walba sii cusbanaanaysaa oo fikrada cusub baa soo dhalanaya in ila waa muddo dheer baa 10 sano wixii cusub ee soo baxa ee kuwii hore ka wanaagsanna la qaatay adduunka soo baxa ama naga dhexdeeda ka yimaada kuwa guulaha in badan baa maqashaan oo taasaa la qabtay waddadii cergaabo waa la dhisay dhaqaalaha la kordhiyey darajo waa la bixiyey ciido taa waa la yaqaan laakiin waxa wanaagsan inuu dee dhaliinaha sheegano xaggee la saxayaa dhimatay ko waxaad moodaa oo soo baxday maadaama aanu ahayn dal dagaal ka soo baxay maadaama aynu dad aada dhaqaali suuriya ahayn in miisaankii kulmiye policigiisu uu noqday xooggiisu dhaqaalaha kordhi dhaqaalaha markuu kordhinayo macaawino dawladda xoog lama soo kordhin dawladda axmed silaahi hogaaminaya khayraad deg degana ma helin iyadoo statusku waa dalku xaaladiisi yahay ayaa haddana waxa laga fikiraya in kor loo qaado dhaqaalihii oo haysa budgetka oo 61 milyan baa laga qaado 320 baa lasii marinayaa mushaaharo kor loo qaado dariiqyo badan baa la sameeyey daryeel badan baa xukuumadda dawladda lagu sameeyey abaaraha iyo dadka jooga maalintii hore si dawladdu 2 milyan bay bilowday inta ay wadana iyadaa waday imika maanta waxa ay bilaabeen qolyahan UNDP iyo markii dhaqaale la siiyey halkan maariya jooga qaabsanaha hawshaas maanta ay bilaabeen ilaa 160,000 oo qoys quudiya
intii ka horeysay koob iyo lixdankaasi eerayu gaarin bishii hore bilaabeen dawladda ayaa waday iyo baacmishirkeenu isu tegay oo dawladdu faasilad garanayso markaynu dhaqaalihii xoog saaray ee wixii la hayay mushaaharo la kordhiyo waddo la dhiso daara iyo mashruuc la dhiso ay gashay maxaa soo baxay dawladdu waa buul habre buulka islaamaha miyiga u daldawr badayay kula meel baa fiirata halkana dabool halkana dabool meelo kale waxaa ka soo baxay waxaa ka mid a tii imika uu sheegaya gudoomiyaha jaaladdu uu lahaa qabyaaladdu waa xoogeysatay oo dawladdii meel bari joogay oo qaylinaya waxaa loo baahday imika markaa oo la arkaya in gacanna dhaqaale lagu wado gacanna dawlad wanaagga lagu wado dawlad wanaagga oo ah in sharciga distoorka u yaalo dadka qof walba lagu qasbo dawladdu maxay qabataa dawladdu maxaan uga baahannahay ama maraykan haata ama somalia haata ama nairobi haata laba halun baa dawladda looga baahanya marka hore inay nolosha dadka wanaajiso nolosha dadka inay wanaajiso oo nolosha dadku halkaa joogto kor uga qaado iyo qodobka labadaa qofku inuu noloshiisa iyo hantidiisa iyo fikirkiisa nabadgelyo iyo xor u helo dawladdu laba laabood bay qabataa marka haddaad laanta dhaqaalaha xoog saarto waxaad kaa dabcay waxaa laga dabcay tii ahayd dadka in dawlad wanaag kala baro maxaa dhacay marka markii dhaqaalihii loo badiyay xagga horumarka oo waddada ceergaabo buraha loo badhowtay kacsi aad waato oo booraba iyo kala beydh aada eegto oo inta waddada la galay waxaa soo baxay hay-adihii dawlad wanaagga waday dhaqaaloodu baa yaraaday shaqaali la doonay lama siin hawlaha ay ku hawlgeli lahaayeen iyo miisaaniyadahoodii may helin gaabas bay noqday deetana waxaa la tabayaa wax badan oo ay kamid tahay dadku inaan sharcigaa aada u dhowrin oo intuu nmeel soo taga anaga horreeya galo waxay xasab samayn maxaa la rabay dawlad daadejinta dawladdu inaad tagto oo awood u lahaada maamulka gobolka iyo ka degmadu uu dadka isugu daro wacyigelin uu u sharaxa dawladnimada iyo waxa loo tarayo qofkay deeq weydee shaydaan meel uga yeeraya ee doonaya inuu dawladda jiirina ay ka qabtaan markaa socodka dambe dhaliilaha la dawladda hore kamid tahi dadkuna ma jecla in loo aada iyo aada u shaqeeyo laba maxaa kale iyana dawlad wanaagga laga dambeeya markii aanu xoog u saaray xaggan kale dawlad wanaagga waxa kamid ah inay dadku oo xeerku sheegaya qofka muwaadinkii way u siman yihiin dalka xuquuqda dalka hadday madaxnimo tahay iyo hadday dhaqaalo tahay iyo hadday tacliin tahay iyo hadday caafimaad tahay iyana xooggii la rebe loo gelin dulmiga u weyna dhexdeenu ka dhaca dhaqankeena marka u ka haweenku waa 50% dadka dalka u dhaqan ama haddii la eego weliba bar bay dheeriyi waxaad moodaa somaliland in 50% 50% babasha kamida oo haweenkay xuquuqdoodii shaqo iyo tii talo labadaba laga xidhay dee talo dalkii 50% baa naafaysantay ilan shirki ma soo gelayaan oo talo ma keenayaan ma shaqeynayaan ofisada shaqo ma helayaan oo laguma soo daynayo dhaqan kasta ha yimaado 50% baa maqan waxay u baahan yahay dhaqaale lagu soo meel mariyo oo lagu fuliyo in barnaamijka kor lagu soo qaado 50% ay soo galaan maxaa kamid dawlad wanaagga 70% Somaliland dadka ku dhaqan 4-3 milyan oo xoogay waxay ka yiri daadooda 30 waana xoog birta soo socda 70% ka 30 ka yar ee Somaliland ku nool 68 way shaqalay 86 way shaqalay oo marka xoogga intaa laga shaqo beelo waxaad aragteen ee tabanaysaa inuu dhabiya ka soo baxay taariikhdu ka mid tahay gaangistar ka mid noqonayo niyad jab ka mid noqonayo waayo waa xooggii oo u baahan in la jeeyo waxay u baahan yihiin in dhaqaalo loo huro oo horta marka hore la baro skills ay ku shaqaystaan oo ay caalamka u shaqo tagaan oo ka gaaban jaamacadda 12 sano kan yadurba markay shaqada halaana loo sahamiyo ama loo doono haddaynu karanayna inagu aynu u samayno warshadaha xaq shaqeeyaan haddii kala aqli iyo fikrad iyo
caawa adayg la keeno caalamka loogu yeedho lagu soo jiito inay soo maalgeliyaan si mustaqbalka dadka aan meel goyo haddaanad adna waxna haynin cidna aanad ugu yeedhin oo cidna soo xulxudin oo dalka keenin dadkaagina baaha yahay baahiduna sii kordhaysa mustaqbalka dee dhagax meesha yaalaata waxa ma tarin dadkuna way ku tuumayaan fikradahaanu soo wadna markaan si kooban dhahdo waxaynu ku daraynaa keliya caalamka inaynu xiriir badan ku yeelano kelmadda laga ictiraafkaynu raadino aanu si kale udhigno 20 sano aynu ictiraaf wareysanayna caalamku waxaynu ictiraafayaa markuu isagu inoo baahdo ee aada noqoto qof dan laga leeyahay oo dan loo soo doonto laakiin qof waxba lagu furay haddaanad wax soo saarayn haddaana caalamka markii aada waddo marka qaarkood caalamka ogeyna adiga ree hebel iyo ree hebel gabaygaagi iyo hashii 100 sano ka hor taagintoona aad ku hadlaysaan oo laba tooluun isu faanayso haddii aragtaadu intaanay dhaafayn haddii kaagi aqoon laa sare u qaado aad halkaa kalkalacso daweena hebel iyo waad isoo iibsatay meel baad tegaysaa oo dhaqanka soomaalida badan desay noqonaysa marka ictiraafku wuxuu imanayaa markay dadku ku arkaan keebaa tahay shaqaalahaagu meelba gaadho aqoontaadu meelba gaadho ka kuu yimaadaa uu jeclaysto inuu xoolihiisa kugu aamino oo tahay qof nabadgelye leh oo kala dambeeya oo hadduu wixiisa gashay britow kula soo baxayo oo dad shaqeeya u keenayo dee markaas baa lagu imanaya haddaan intaa midna haynin dee ictiraaf aad la wareegsato waa runta dad meel joojoogaa tahay laakiin iyo dee maxaan kaa dheefaya u koreen dadku marka inaynu taa dadkan u diyaarin u baahana oon ictiraaf gudahana ka doono iyadoo fikradahaas laga duulayo waxaanu ku talaabsanaa waxyaala badan waxaad maqashaan iminka magaalada barre buuq meedhan new york times baa ka hadlaysa dadkii somaliland o dhan baa ka hadlaaya afka sawaaxil jiraadka waraa laga hadlaa bal dadkii berber waxaa ilahay waaba yaabanahay meel badda kadiya saldhig waa laga sameeya berbere maxaa laga rabaa labada mashruuc waa kala qaadaya mid waxa weeye dekeda berber d b wel waa shirkad caalami ah muddo dheer baa shirkada la raadinayay ilaa markuu wasiirka kharijiga hore joogay bay soo socotay ilaa dowladii hore dhowr shirkadood baa soo xiiseeyey berbera tartan baa la geliyey shuruudi laga geliyey baa la eegay d b wel baa iyaa ugu wanaagsanatay waa shirkad ganacsi ah waxa weeye dad badan baa odhanaya waa layna dhacayaa iyada inaga faa'iido badanaysa sana dhacaysa haddii la gorgortamaayo nin waliba waxaa yula tegayaa laakiin waxa weeye adiguna baahi baad qabtaa iyaguna baahi baad qabtaa halka aad ka dhaaf weydaan ee aad dantaada ka dhaqaajin kari weydo waanad ka bilowdaa maalan sacuudiga arabia oo maanta adduunka dhaqaalahaan ugu horro weyne boqor faysal markii ay arabka u tagtay u horreysay 5% buu qaatay faa'iidadiiba 95 arabkaa lahayd qodob buu ku darsaday dhowrkii sano mar bar sharciga dib u eegayna 30 sano ka bacdi ka baashi loo wareegay maanta dhaqaalaha adduunka weyn baa jooga walaaladiina bariyaa way isku laayeen waxa dalka aad siinaysa la fursad isku dhaafay marka DB World waa shirkad ganacsi ah oo laga doonayo inaynu maalgashi ka helo oo dhismo ka helo oo shaqaale ka helo oo aan aqoon ka korsano oo aan caalamka ku soo jeedino deetana waa bareedho heshiis baan u galnay aanu halkii waadkeed aanu mari karin aanu marinay waana hirgashay haddana shaqadii bilowday dad badan oo ka cabanaya jiro qeynaya laakiin u arganaysa xataa cabshaas waayo waxa uu ahdaad haysato oo inuu hayno maanta DB World wayna yeelanayba inaga fullahay laakiin keenay soo taa karno dadkanu shaqo oo horeynu baahna ma intaas oo dhan yaro soo socota iyo inta oday ee beeshan iyo xaq u baahan iyo inta cusbaalaan dhisan laga rabo waa in loo doono dhaqaale koobana ka tahay kaliya doonay qodobka labaad waa saldhig dawladda carabtu waxay natiija saldhig military kareey carabku dhaba kareey waayahay maxaynu ka dheefinaa baanu waxaan la yaabaa mas-uuliyiin badan oo Soomaaliland oo xisbi ah oo baarlamaan ah ayaa aad u qayliya horta waxa la qaylin karaa la isqabsan karaa laba qodob marka hesho wixii lagu heshiiyay laynagu heshiiyay dhibaato ay jirto waa ka iyo waa ka heshiis wali aynu gaadhno la saxeexay oo madaxweyne saxeexay ma jiro bal si aynaan isugu tuumin maadaama saa loo sheegayo dee ay dowladda cid waliba anagu reer baanu karaan nahay la yidhaahdo waxaa la soo dhigay qodobo baarlamaanka la hor keenay oo ah qodobada iyo kuwaas aan ku xidhaynaa nimanka inaga door saldhiga haddii intaa naga yeelo waa faa'iido wana waanu tegaynaa baarlamaanka xaqa hore amriyay qodobo warigeed ma dhacay dowladda qodobana keento distoorka oo gal madaxweynuhu heshiiska galo dowlad kasta laakiin si aynu inagu maadaama aynu dowladda cusub nahay maadaama aan layna ictiraafsanayn maadaama saldhiga iyo hawsheedu u culus tahay
waxaanu aynu fagaaro weyn waxaynu ku bislayn baarlamaankaa loo geeyey intaasoo qodob way dhaafeen caawa madaxweyne ku-xigeenkii wasiirkii khaarijiga iyo 5 wasiir oo kale duubay joogaan heshiiskii bay akhriyayaan markii ugu dambeysay war maxaa inoogu jaban war maxaynu iska ilaalinaa war maxaynu ku darrabaa la wada bal marka la soo saaray laga warbaalkan waa qaldanteeno waxun baa keentay dadka waa garin la diidaa elena waa kaa iyo qodobka in la kanadi lowday kanadi si waa dow iyadoo wala gaarina in cir yar u laga qayliyo oo la yaanaan gelinba ma dawladdu waxay laakiin xaq buu leeyahay qof kale inaan gelin horta qof raayis ku dhimayno hadduu yiraahdo inaga daay ciidan boqol hadduu yiraahdo waa raay sax laakiin isna ixtiraamo inta ka badan iyo dastuurka qofku ha qayliyo haddii dastuurka loo diido wuxuu ku xaq u leeyahay haddii codkiisa lagu caburiyo laakiin maya ha keenin war malaynu keenayno wadana war muxuu inoo tarayaa war muxuu inoo yeelaa rogaal bay bahantay rogaalkiisana weli buu dhammaanin markaa saska ha laga daayo maxaa laga daayo ku jaban nin baa yidhi kula gala wax ma kala karaysana oo waxaa maadila iman oo maxaan anugu keenaya maxaa taadu keenaysaa maraya keen qodobada dad waxaasaad ku qaldantay keligaa maaha anugu maya qof quriya maya marka la isku buuqo xeer baa loo ertisoora sharciga dawladda soo jeedsa baarlamaankaa la mariyaa halkay u bataan bal raaca aniga hadda dee 100 qodob oo aan diidanaha baarlamaanka lagu mariyey oo laga dhaqaaqo sideedda ka u sheegaya kamid ah maalintii siiraayo la yidhi waad ka dhaqaaqa baarlamaanku diidan gursaa tiri iska ilooba waa la ka waayay daahri yaala kahayn codun baa loo taagay aroor buu ka lugeeyey intaasoo sharciya baarlamaanku istaagay adoo qaylinayo mee ka daawa qado tahay baa codda taga waa lagaga badinaya haddaynu taa raaci weyno waxaynu ku noqonaynaa dee dawladda aan iyo keentay jangla hebela xagga u dhaqaaqay hebela xagga u dhaqaaqay ma noqoto dawladdu waxaad diidan tahay oo kula qaldan oo aad ka soo horjeedo ayuu baarlamaanka vote laga helayaa mid iyo laba markaasaa nabadgelyo dhisa dawladdu wataa xeerka dhigana baa kaas maxaa xajraaci gaal baa loo qaaday codka la yidhaha impeachment lagu qaaday leesha oo dadku ugu ixtiraam weynaa oo in badan filay waa lagu impeachment la yidhi 7 soo qoray warqad bay yidhahdeen waa in la impeachment dad badan baa xanaaqay ma la geyn karo aroortii buu soo taagay sidoo maxaa ku qoran 1/3 of the baarlamaanka soo dhigi kara 7 ma yiraahdo dee soo dhiga laba sharci waa la dhigay hal cod buu kaga baxsaday hal xajraaciga majority mesh fadhiyey hal cod bay dhiban in loo gudbiyo maxkamadda mooti malaha waxay noqon dhowr iyo soddon mid baa is dheeraaday dee sheekhi inoo dhisay sharciyadda ee dawladdu inoo saasay ayaa ina baray in vote lagu kala bixi karo marka waxay kaasina taasu ku jiraa waa arrin dad badani ay ka qaliyaan iyagoo dhuuxin waxa ku jira qalad ku jira wax la sixi kara noqon karaan hadduu qalad ku jiro yes qof lagu qeyn xaq baa loo leeyahay war qaladka naga saxa war taasina ma qabato laynama leynayo carabina ma qasbayso dalka naga dhici karaan inama xoojin karaan laakiin iyaynaa noqonin qolad wax uga ka cabsto istaagta dawladda waxaa laga rabaa iyo ajarasa tallaabo taa kaga hor inay qaadaan dadka haddii aan tallaabo adag loo qaadin dalku hore mari maayo haddii nin meel fadhiya ama nin qura qariyo laga baqdo ama koox ma noqonayso kooxda xaqeeda la siinaya fikradeeda waa inay keentaa ninka suuqa ka qaylinaya ama intuu soo fadhiisto baalkan youtube-ka haddaan reebi leynay xildhibaan buu leeyahy baarlamaan ku leeyahy codkiisu waa la bari karaa taladisuu geyn karaa dad badan buu abuuri karaa lobig buu ku samayn karaa wuu bedeli karaa dad badanna wixii saxa waa loo garabsanaya marka waxaan leeyahay dadka xagga xun kor uga qaadaya waa dhab dad badan baa shaki ka qaba dareen badan bay ka qabaan laakiin shakigaaga iyo waxaaga hubso hubi wax cad aanu ku murano waxaan kusoo ururinayaa haddii kulmiye aanu nahay annagu aanu nahay waxaanu dalka ka doonaynaa inuu ka dhaco doorasho xaq oo xalaala doorasho aan inoo keenin dhibaato iyo buuq waxaana waajiba nin wali kii laga helaaba inuu ka kala taariideeyo saasaanu ku horumarayna dalkeena waana inoo bilaabantay oo kuwii inooga horreeyey ayaa saas sameeyey haddaanu inoo kulmiye nahay waxaanu ummadda u sheegaynaa in aanu gelina cambeyn nadiifa oo dalka xagxagasho u lahayn oo aan colaad iyo nac hoose iyo franfar midna lahayn ayaanu ballan qaadaynaa waxaanu ballan qaadaynaa
doorasho xor oo xalaala haddiina laga helanahay inaanu taarin doono ciddii lase inaanu taarideyn doono aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa jaaliyadda reer Nairobi ee caawana soo dhaweysay mar labaad waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum daawadayaal intaasi waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan dalka Kenya iyo kulankii ay wada qaateen wafdigii uu hogaaminayay gudoomiyaha xusbul xaakimka kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweynaha xusbigaasi mudane Muuse Biixi Cabdi halka barnaamijkaasi kala socoteena wax fiiska TV-ga qaranka Somaliland uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan idin soo jeedinayay anigoo Cabdilaahi Cabdi Caliya dhinaca kamarada iyo farsamadana حسين علي daawadayaal intaan ku kulmi doono barnaamij mid kan la mid ah geesteeda waxaanu kaga tageynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi tacaala wa barakaatuh